tiraba 4 ruux oo isku qoys ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii wiil 9 jir ah uu dhintay jirdil loogu geystay gurigooda oo ku yaala magaalada bariga Faransiiska ku taala ee lagu magacaabo Malhouse. ilo booliska ka tirsan ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in wiilku uu diiday inuu ka shaqeeyo layliskii iskuulka looga soo diray kadibna ul aad u buuran lala dhacay. gabadh ay walaalo yihiin wiilka dhintay iyo waliba wiilkii ka weynaa sidoo kale gabadh kale ayaa guriga joogay marka arrintaasi ay dhacaysay. inkastoo wiilka hooyadii meesha aanaysan joogin haddana xabsiga ayaa iyadana sidoo kale loo taxaabay oo waxa ay ka warhaysay waxa meesha ka socda sida ay wararku sheegayaan. dhimashada wiilkan ayaa dhacday goor hore oo subaxnimadii tacsi ayaa looga dhigay magaalada Malhouse. dadka deegaanka oo mudaharaadayna waxa ay ku dul wareegaalaysanayaan guriga waalidka dhalay wiilka yar ee la dilay. wixii markii hore waalidku sheegeen in wiilku uu eersaday dhaawacyo lagu arkay meydkiisa oo baaritaan lagu sameeyay ayaa boolisku ku qaaday in baaritaanada ay sii wadaan sida uu qoray website-ka wax ka qoro arrimaha hidde-sidaha oo lagu magacaabo Alsace DNA. inkastoo wadnuhu uu istaagay wiilka haddana khuburo baaritaano ku samaynaya meydka ayaa waxa ay sheegeen in wiilku uu eersaday wax lagu dhiftay sida website-kaasi uu sheegay. booliska ayaa laga soo xigtay in shay lagu dhiftay wiilka. hooyadii ayaa guriga ka maqnayd oo safar ganacsi ah ku maqnayd balse si joogto ah ayay u dhiirigelin jirtay in la ciqaabo wiilkaasi iyada oo arrintaasi ku sababaysan inaanu rabin inuu inanku ka shaqeeyo layliska iskuulka looga soo diro sida ay ku warantay warbaahinta wadankaasi Faransiiska. 4 ruux oo qoyska ka tirsan ayaa khamiistii la dhigay xabsi ku yaala magaalada Malhouse waxa ayna ka soo hor muuqan doonaan dacwad ooga ka hor inta aan maxkamad loo gudbin. inkastoo dilka looga shakisan yahay wiilka ka weyn oo 19 jir ah haddana baaritaanada ayaa lagu doonayaa in daaha ay kaga rogaan waxyaabo badan oo masiibadan la xiriirta. dilka wiilkan yar ayaa imanaysa waqti baarlamaanka wadankaasi Faransiiska uu ku doodayo in la mamnuuco in carruurta ciqaab adag lagu ciqaabo. Siciid, Axmed, TAMREYSE, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.